Assalaamu calaykum. Yuri Gagarin, wiil ka dhashay tuulo yar oo ku taal Ruushka, helay darajada ugu sareysa ee Sofiyeetku bixin jiray. Yuri Gagarin waxa uu noqday aadamii ugu horreeyay ee hawada sare tegay. Yuri waxa uu dhashay 9 Maarso 1934 tuulada Koroshino. 1950 waxa uu tababar shaqo ka bilaabay warshad soo saarta birta ku taal Liberty, xilligaas oo uu jiray 16 sano. Sanad kadib waxaa loo doortay inuu tababar dheeraad ah ka qaato dugsiga farsamada gacanta ee Saratov, halkaas oo uu ku bartay samaynta cagafyada. Sanadkii 1955 waxa uu ku biiray dugsiga ciidamada cirka ee Cheklovsky. Markiiba waxa uu bilaabay tababar ku saabsan diyaaradda Yak-18, kadibna wuxuu bilaabay diyaarad kale oo la yiraahdo MiG Jet. Inta uu ku jiray tababarka labada diyaaradood waxa uu sameeyay 265 saacadood oo duulimaad ah. Intaa kadib waxa uu muujiyay xiisaha uu u qabo barnaamijka hawada sare Sofiyeetka. Gagarin iyo 153 qof oo kale ayaa loo diray Moscow si ay tijaabo jireed iyo maskaxeed ugu maraan barnaamijka hawada sare. 7 Maarso 1960 ayaa la doortay 12 qof ee ugu dambeeyay oo Gagarin ku jiro. Tababar kale ayay ka bilaabeen gudaha Moscow. Qaybta tababarku waxay ku lug lahayd jimicsiye jireed oo xoog leh. Bil kadib waxay bilaabeen tababarka baarashuutka. Mid walba waxa uu dhameeyay 40 ilaa 50 boodo oo isugu jiraan joog hoose iyo joog sare. Mid kasta oo ka mid ah waxaa lagu sameynayay tijaabooyin loogu talagalay in lagu tijaabiyo dulqaadkooda, oo ay ka mid yihiin tijaabooyinka gaajada iyo oksijiin yaraanta, taas oo lagu xidhay qol gooni ah oo ay hawadu si tartiib tartiib ah u soo galayso. Gagarin qolka waxa uu ku jiray laga bilaabo 26 July ilaa 5 August. Si kastaba ha ahaatee, Gagarin waxa uu noqday musharaxa ugu cadcad markii la weydiiyay mid kasta oo ayaga ka mid ah inuu si qarsoodi ugu codeeyo qofka uu jeclaan lahaa inuu noqdo qofkii ugu horreeyay ee duula. 3 kaliya mooye waxa ay doorteen Gagarin iyagoo aaminsan inuu yahay qofka ku habboon. 8 Abriil 1961 ayaa si rasmi ah loogu magacaabay Gagarin. 4 maalmood kadib, 12 Abriil 9 subaxnimo waqtiga Moscow, ayaa waxaa kacay dayax gacmeedkii Vostok 1, sidaas oo uu Gagarin ku noqday qofkii ugu horreeyay ee ka taga dhulka oo u safra hawada sare. Hal wareeg oo dhammaystiran ayuu ku soo wareegay dhulka. Ugu dambeyntii, isaga iyo duuliye kale ayaa waxaa la qaraxay diyaarad ay tijaabinayeen 1968, 7 sano kadib waqtigii uu soo noqday.